daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka haweenimo ee telefishinka kulmiye qodobada warkeena caawa aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah xildhibaankii hore ee deegaanka Lagdheera oo geeriyooday warbixin dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa arday dhigata fasalka 8aad oo dacwad ka gudbiyay macalinkooda sidoo kale waxaad ku daawan doontaan dawladda oo lagu baaqay inay wada hadal la yeelato Imaaraadka qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan diyaar garowaan noqod wacan oo wanaagsan idilkiinba daawadayaal haddii aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya warkeena caawa barakacayaal daryeel xumo ku haysata bartamaha Gaarisa iyagoo ka soo cararay fatahaadaha webiga Tana qodobkaasi waxa inooga faaloonaya wariyaheena Muxtaar Macalin halkan maanta aan ku suganahay waa mid ka mid ah barakacayaasha ka soo barakacay webiga jinkiisa webiga markuu soo fatay soo barakacay halkan markaa imaanay waxaan ku aragnay macluul darri aad u weyn carruurta halkan ku sugan waa carruur la ildaran xanuunka shubanka ah waayo maalkan kuma haystaan musqul waliba daryeel caafimaad ku tabaalasan waxaan aragnay dad waayeel ah oo halkan dhibaato ku haysto waxaan aragnay hooyooyin xaamil ah oo halkan ku haysto dhibaatooyin cunno ma haystaan maanta waxay noo sheegeen inuu maanta waagiisuu u bariyay aysan helin waxay cunaan waxaa kaloo maanta halkan ku ogaanay inaysan helin biyo nadiif ah oo halkan ay ku cabaan waayo biyo halkan waxaa lagu soo ramay in halkan aysan jirin wax biyo waxa kale maanta aan ku ogaan halka hadda aan ku suganahay in xaalado kala duwan oo markaa caafimaad ah in halkan ku jiro kwanza huyu nimembeba ana mama nasumbuka na yeye tu mamake amekufa ana mama na tangu tumekuja kuna msaada yote tumepata ile mahindi tumelima ndio tunasaidika na hapo tunachamsha bila maharage tunakula lakini kuna mtu yote amekuja na serikali wako tu magavana wako na hawa watu wetu kansala wote wako kuna hata mtu mmoja amekuja kuangalia hawa watu wametoka kwa shida acha tuwaona kuna mtu yote amekuja na wanapita tu na hapa kwa barabara tunachimba shimo mtoto akienda haja tunafunika na corona tunavaa hizi mamaksi ndio tunavaa hatuko nazo tunafunga maleso hivi mtoto ana njaa saa hii ana mama yake amekufa saa hii amemwacha wakati mamake amemwacha mdogo hata hajafikisha hata mwezi moja ndio mamake amemwacha sasa mimi kaa nimehangaika na yeye mpaka akafika saa hii kuna miezi 7 nimesumbuka na yeye alikufa na maji mamake ilmahan yare inuu hooyadiis dhimatay isagoo jira hal bila ah hooyadiisna u dhimatay markaasi inay la tageen biyaha webiga jinkiisa Tana waxaa kaloo ii sheegtay cunugan aabihiisa inuu waashay kadib markuu maqlay in hooyadiisa markaasi ay biyo u dhimatay waxay halkan ku haystaan macluul darri ma haystaan hooy waxay ka kala imaadeen meelo kala duwan halkan ay ku haystaan macluul darri cunugan yari hadda wuxuu jiraa 7 bilood maamadana waxay sheegtay inay haysan wax ama hadda ay ku taawasho maadaama iyadoo ay tahay barakac ay ka soo barakacday webiga jinkiisa mama hakuna mama amefariki pande ya maji lakini ni mgonjwa tu ya kawaida alifariki tukamzika Deri. Adija gula mbaya. Adija, tuelezee hebu hali ambayo mnaishi hivi sasa. Ni maji ni nini hakuna bakila lalo maji ndani nani maji la rejea koje imeweka haya mimi nenda Garissa anasema hakuna maji ya kunywa ni shida kitu hakula hakuna kuishi vitu anasema Kiswahili anazungumza lakini nataka hiyo Kiswahili hiyo ndio nataka alimaka hiyo alikuwa wapi Kiswahili la mimi nakula maji hakuna hii hakuna mimi ndio enda Garissa hii ungependa kuambia nani viongozi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkani tacsiyatii looga diraynaa ehelkii iyo waliba qaraabadii uu ka baxay xildhibaankii hore ee deegaanka Lagdheera Cabdullaahi Sheekh Daahir warbixintan waxa inoo soo koobaya wariyaheena Iltire
inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. allaha u naxariistay mudanihii hore ee baarlamaanka ku matili jiray deegaanka Legdheera ee ismaamulka Gaarisa Cabdullaahi Sheekh Daahir ayaa geeriyooday. waxa uu deegaanka Legdheera ee baarlamaanka ku matali jiray intii u dhaxaysay 2002 ilaa 2007. waxa uu saaka ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Nairobi oo uu muddo ah ku xanuunsanayay. dhanka kale xildhibaanka laga soo doortay Gaarisa Township ee ismaamulka Gaarisa Aadan Barre Ducaale ayaa ka tacsiideeyay geerida xildhibaankii hore ee Legdheera. waxa uu tacsi u diray qoyska, ehelada iyo bulshada uu ka baxay. Mr. Ducaale ayaa mas'uulka geeriyooday ku tilmaamay in uu ahaa hogaamiye u ololeeya nabadda iyo weliba wada noolaanshaha bulshada intii uu hogaaminayay. waxaa intaasi ku daray in uu ahaa oday caan ka ah bulshada isla markaana ay bulshada aad u ixtiraami jirtay. sidoo kale tacsida waxaa diray Sheekh Xasan Cabdullaahi Camey oo ah gudoomiyaha dalladda hogaamiyayaasha muslimiinta ee loo soo gaabiyo NAMLFE laanteeda Gaarisa. halkaad inaga daawanaysaan waa telefishinka kulmiye xarunta fadhigeedu yahay magaalada Tani Gaarisa. welina waxaynu ku guda jirnaa qodobada gudaha dalka. arday dhigato fasalka 8aad ayaa dacwad ka gudbiyay macalinkooda iyagoo ku eedeeyay inuu faraxumeyn u geystay. warbixintan waxaa inoo haya wariyaheena Cabdullaahi Xuseen. arday dhigata fasalka 8aad ee dugsiga hoose dhexe ee Kagio ee ismaamulka Kirinyaga ayaa iskugu soo xumay saldhigga Kiamasiri ee deegaanka Mwea. waxayna codsanayeen in la soo xiro mid ka mid ah macallimiinta oo ku xadgudbay sida ay sheegeen faraxumeyn u geysay qaar ka mid ah ardaydani oo iskugu jira wiilal iyo gabdho oo iskugu tagay saldhiggaasi ayaa waxa ay sheegeen in macallinka uu ku xadgudbay qaar ka mid ah ardayda isla markaana waxa uu ka dalbaday galmo isagoo qaar ka mid ah ardaydaasina u geystay faraxumeyn gacan ah. taliyaha booliska ee deegaanka hoose ee Mwea ayaa sheegay in ay socdaan baaritaano dheeraad ah oo lagu xaqiijinayo in gacanta lagu soo dhigo macalinkaasi iyo falka geystay. gudoomiyihii hore ee Nakada John Nduthi ayaa dawladda ugu baaqay inay wada hadal la yeelato dawladda Imaaraadka Carabta. warbixintaasi sidoo kale waxaa inoo eegayay wariyaheena Cabdullaahi Xuseen. gudoomiyihii hore ee ololaha qaran ee la dagaalanka isticmaalka daroogada ee Nakada Mr. John Mutudho ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani Kenya ugu baaqay inay dawladda Imaaraadka Carabta wada hadal la yeelato. tani ayaa imaanaysa kadib markii dawladda Imaaraadka ay si ku meel gaar ah u joojisay bixidda dalku galka ama fiisaha la siinayo muwaadiniin 13 wadan oo dalkani Kenya ka mid tahay. John Mutudho ayaa hoosta ka xariiqay in talaabadani ay saameyn doonto ganacsato aad u badan oo Kenyaan ah. sidoo kale waxa uu ku baaqay in la kala diro saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee gudaha dalkani Kenya. daawadayaal waxaa halkaasi inooga dhan warka haweenimo ee telefishinka kulmiye. warkana waxaa halkani si toos ah idinkaga soo tabinaysay anigoo ah Kanaan Xarago. waxaa warkiis ku soo dawariday wariyaheena Cabdullaahi Xuseen. kameradana waxaa inoo hagayay wariyaheena Mustafa Xasan. tani intayn ku kulmayna warkani mid la mid ah sidaas iyo isma dhaafno.